رمضان. haddaad ku cusub tahay Danjire channel fadlan subscribe saar videogana like saar bal isku daya videogana aad gaarsiin kartaan 500 like aad baad mahadsantiin dhamaantiin soo dhawaada asxaabta sharafta leh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun geeridu waa xaq waasa kala xanuun badan tahay laba wiil oo Soomaali ah oo xaafid qur'aan ahaa isla markaana wada dhashay ayaa lagu dilay dalka Mareykanka waxaana dilay walaalkooda la dhashay dhacdo xanuun badan oo taabatay qalbiyaasha ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale muslimiinta ku nool caalamka daawada si xushmad leh waxaan kaaga codsanaynaa muuqaalkan aad leeyahay siina sheerkaysi siina faafisi labadan wiilna u duceysii ee geeriyooday dhalinyarada ahaa naxariisto Rabbi weyne labadan wiil oo xaafid qur'aan ahaa xalay waxay ku tujiyeen salaada taraawiixda masjid taqwa oo ku yaala magaalada Kansas ee dalka Mareykanka waxaana ayagoo ka baxay masjidka kuna sii jiiday gurigooda hortooda waxa ku dilay walaalkood oo ka weyn oo hal meelna ku wada toogtay labadan wiil ee walaalaha ee geeriyootay ayaa caan ku ahaa faafinta diinta islaamka iyo khayrka gaar ahaan waxay uga ahaayeen magaalada Kansas ee dalka Mareykanka muslimiinta ku nool magaalada ay si aad u garanayeen kuna yaqaaneen khayrka iyo diinta faafinteeda yeeshee ugu dambeyn waxay ku baxeen gacanta walaalkood ayagoona filayn arrinkaas inuu ku dhacayo masaajidkii ay dadka ku tujin jireen salaada taraawiixda ayaa la geeyay meydkooda si loogu tukado salaada jinaasada Allah ha u naxariisto aynu ducayno dhamaanteen Allah inuu ka waraabiyo naxariistii janno labada wiil ee xaafid qur'aanka ahaa muuqaalkana sii sheer garay si ugu duceeyaan walaalaha Soomaaliyeed oo dhan